أنا الصومال هذا هاي مشكلة أنا أقول على الحياة فهم كدولة منتك أيام مشكلة أنا قبضتي محايا له هب كدولة منتك اللي ما فاهمين لو ما نديارين دولة إلى دولة تا أو ضدكوا أي دولة دليلين ودولة بالشيء أي ضد كتاب وعلى فهمي أو لا قبل فعلا دولة إلى ضد كلامها أيها ضد كإسكاله سيربطي كييري يا جريساس دولة ضد كوش قيسا ومثلا هذا مثلا أبي جيدا لبحيه عافماتك وكاكا سوقبه عافماتك دب الحاجة العاكا يستا وأيضا يعرض هذا إسداوين كرا ودخاتير تبرايفت كوش قيستا إسبتالة جاركا إسكاله meelaha ciyaadaadka ama kaliinada tay kara oo lacag iska bixin kara oo isdaaweyn kara way ku mahadsan yihiin maxaa yeelay isdaaweyntaasi waa muwaadin Soomaaliyeed oo inaan daaweyno laynaga rabay oo inaga kafaala qaaday oo yiri anigu ana isdaaweynaaye bal inta kale isdaaweyn kari wuxuu raadiya qayb ay naga dhacday marka qayb waxa jirta markaan isdaaweyn karin qaybtaan isdaaweyn karin waxay u baahan yihiin adeeg caafimaad in loo sameeyo adeeg caafimaad yaa u sameeynaayo dawladda u sameynaysa oo dawladda xagee uga sameeyay xagee uga keenay inta maanta wax isku dardarno oo waliba wax yar yar hadii bulshada loo qaybiyo inta ku aadaysa qofkiiba wax yar ku soo aadaysa intaas inta la isu geeyo ayaa dib waxa loogu ceynayaa intana aan caafimaadaan kaligood isdaaweyn karin ayaan wada daaweynayna yaa daaweeyay dadkaas marka bulshada daaweysa dawladdu maxay u qabatay dawladdu dadkii wixii ay ka soo urursay isu geegeysay ayay dib ugu soo celisay hadii saal la helo ruux jirina lama arkeen qof tacbaan oo sina lama arkeen culays dadku ay dareemi lahaayeen lama arkeen laakiin goorma arrintu xumaanaysa dadka wixii laga soo aruuriyo ama laga soo qaado hadii ayna dadka dib ugu soo noqonaynin maxay yakaanaysaa meeshan xoolaha lagu urursadaa masaasa ahaa qof walba wuxuu hanqaltaagaya marka suwaasna markiisa u urursan lahaa marka weligeed horumar lama gaaraayo laakiin markii loo fahmo inay tahay meeshan adeeg dadka loo qabanayo mar kalena waan sheegay madaxweynaha ugu horeeyay Soomaaliya aadan cad Allah naxariistay markii doorashada uu galay waa madaxweynaha ugu horeeyay Afrika doorashada intii laga helay si nabadgelyo ku wareejiya taariikh ay loo gashay dad awal waxay dhan laawish ma bixisid oo kuwan wax dooranaya ma lacag siisid sid aad cod u heshid markaas hada taariikhda wuxuu ku yiri madaxweynenimadu waa adeeg dadka loo adeegayo macnaheedu waxa ay dadkii ayaa waxay ku ogolyihiin inaad u shaqayso hadday dadku rabaan inaan u shaqeeyana hay doorteen hadday iga maarmaan oo inaan shaqadayda ay rabina aanu ku qasbi maayo lacagna ku bixin maayo hay daayeen fiir madaxweynenimadu iyo maamulku waa adeeg dadka loo qabanayo hadday dadku soo wada fahmaan ruux ku ordi lahaa ma jirto laakiin mushkiladda ugu dhacday waxay tahay fahamkii oo qalloocday wixii meesha jiray oo ay noqotay in ama la isku dulmiyo ama wixii dadka lagu qaato dadkii dib loogu soo celinin dadkii ayna wax ayagu leeyihiin aysan ka dhaadhicin halkaas meesha ka dhacday waxa kale meesha ugu dhacay Soomaaliyeedna orodkeenu ugu badan yahay dad nashaad badan oo firfircoon ayaa leeyahay marka firfircoonaas waxay keentay inaan madaxweynayaal badan aan u baahano oo mid kasta asaga uu rabo inuu madaxweyne noqdo haddii dad qabo oo degan aan ahaan lahayn oo dadku tartiib ay iska yihiin oo qofkii markaas hawsha haaya يعني انت فراح لو قاادو وقتي markuu dhamaado ama la doorto loogu celiyo ama mid kale la keeno ay qowgaas ahaan lahayd waxaan oo ma dhicin laakiin buuq iyo qaylo iyo surabitaan shakhsi ah ayaa tirada ka batay markaas firfircoonideenu waxay keentay inaan qaboon weyno inaan deg weyno xigmad kale afmaano waxay dhaysaa afmaano xoolaha yar barbara raalaha saad yani qawaadisan oo heshaan waxaa la yiraahdaa إيرين سانك باري إيرين هو واكن كباريه معناه وحاجة يعني هتوقف ما يجي محاترية ويستقبلين مرة قاكون لكن حديث الكلمة مال سلوا استعماله إن لقطة كلام أما اللهجة كلامنا مالك الله استعماله هذا الله ما يفسره حالي أرجع ولا بعد عتك هذا يرجد كبار يرجد يرجين يرجد أي بينهم habeenkaas riyaas iyo meesha ku badan ay oo urdidu ku badan yihiin istaag waagu ugu bariyaa wax fariisan ma jirto maxay la urdidu caawro u qeynaya afmadaan xunooday
إرن إحسان كبيري إرن وعارف وعارف أقدام سنة لكن هكذا يحب أنت أربعين هرين وايد يقول شيء سي ماشي سوق شو أمعاء ولا طورا إحسان مركب محل بحنا مكان عاد به محصورة إحسان صار مو لكن إحسان كمشكلة كتاجنه أفمحات ترى إحسان الحلوية قالنا مدة بدقة مدة وحرت كوناتي كذا إنجاري بالعالم كدام سودي يحاول يقبله مركب يلا قشانتي ذا مركب إحسان تو قشانتي وبدي موتاي لكن أفما ما يبو أرجع يحاول إحسان أرجع إحسان marka irin eesaanka bawdi arigu orgi ku batay inuu rooga waa kan ka bariya suuta taagaya iyagu ugu bariya Soomaaliya marka maxay nagu dhacay eesaanka nagu batay marka inuu istaagay ugu bariya maadiida waxaan baanay marka orgidina la hadalno oo aan walaalayaal wada bisuu u dago وهذا إن عن مركع ذكي ودقي لاين قف كسينا صوم مدحونا نقول هدور ربه ذكي وهو ويرفع لاين مركب بالعن فرصة تسين عن ترتيب وقبول وما ذو الدجال ويصومران ولا يستدجالا لكن وما ده دجال كوينو دماغه ذكي وين يشيان لكن دان دانون هاي سكسر عضو إلى أن تبص عنايا مال كل ما لم يقانو هاي مسكود ناون هاي أسكود نلي هذي لا يسكوده لا يسكود وحاس ورنا هذا الدجال ولا الدجالني وقت دير يلي ولا الدجالني هذا اللي يجي عصاب حبايا قولوا له بالليل مجرته dad maxay ahay gurigiisa laga qaatayna ma jirto qolada meeshu ilaahay ku abuuray ayadun baa joogta marka walaaltinimo hadii lagu wada joogo waa sida ugu fiican hadii laakiin xoog iyo qaylo iyo rafaad ay noqoto cid walba way dhibtoonaysaa ilaahay wuu ogyahay qofkan uu daalim yahay laakiin dadweynihii ma oga qofkan qalbigiisana ma ogo wuxuu yahay xaqiiqadiisa gudahana ma ogo waxaa laga yaabaa isagoo daalim ah oo dulmi samaynaya inay dadku ka indhabeelaan dulmiga uu samaynayo oo ay saas ku jeclaadaan oo idhaahdeen haliyaa noo soo baxay oo muxuu sameeyey haddii wuxuu sameeyey la fiiriyo waa dulmi laakiin dadkii dulmiga ma arkayaan waa nin fiican haye muxuu ku fiican yahay asaga waxaa laga yaabaa maanta inuu kasii jeedo bes maanta asaga kuma soo jeedo daalimku laakiin meel kale uu dulminaya uu kusii jeedaa maalinta asaga uu kasii jeedo wuu taageersan yahay maalintaas haddii la qabto la dilo oo uu dhinta kaas haddii la qabto kii uu ka sii jeeday ee ag taagnaaya aan dulmigiisa arkaynin wuu ku fidnoobayaa oo wuxuu arkayaa halyey uu soo baxay oo la laqmiyey oo markiiba la qabtay ilaahay wuu sugaa marka in allaha la yumli lidaalim hor lagama qabanaayo waa loo sugaa hor maa laga qabto ilaahay wuu qaban karaa maa la qabto lama qabanaayo waa loo sugaa daalimkii kooxda haddaa uu sii dulminaayay wuu ka soo jeesanaa kii ag taagnaa ee maalintii hore u sacbinaya lahaa halyey ayaa ii soo baxay ayuu ku soo jeesanaa dulmigii dadka kale uu ku hayay xanuunkii ayuu dhadhansiinaa qofkii markaasuu baraarugaa warkan muxuu ahaan lahaa waa kii dadka dulminaayo war ani saan muu malaynaynin adigun buu kaa maqnaa waxay balaayintaadii kaa maqan tahay buul walaalka ay ku maqan tahay marka balaayo waa inaan la ogolaanin inay buul kale ku maqnaato haddaad ogolaato inay meel kale ku maqnaato waxaad ogaataa adna maalinkaagun bay kugu soo maqnaanin dagaaladii waqooyiga beriga dhahan 88 oo qaxitaankii iyuu sii bilaabanayay arday la soo bedelay oo noogu dhata koonfurta oo wax baranaya jira dhalinyarada iyo ardaydii way isfoorjeen intii xaggu ka imaaday xaggu yani isdhexgalkii markaas waxay dhihi jireen ardayda qaarkood aan kuwan xabad ayaa keentay xabaday ka soo carareen xabadi keentaa dhihi jiray ayuu waxay dhihi jireen xabadi sugte haddana xabadadaa keentay idinka way dhimantay waad sugaysiin si lama noqoninoo saamaan kala noqonay xabadi keentay iyo xabadi sugte wixii dhan isa wada qarxay way dhammaatay marka hadday saas oo kale noqoto markay isku dhammaato oo cid walba ay wada gaarto markii qofka daalimka markaa la qabto dadku maxay dhahayaan ilaahay baa na dhaafiyey marka meeqa idinku taariikh dib u raaca oo maalmihii hore loo sacbinaya oo lalahaa maasha allah waxbaa noo soo baxay maalmihii dambana ay noqotay warkani muxuu ah xaguu ka soo dhacay maalinkuu dhintayna ilaahay baa na dhaafiyey maxaa yeelay qofka daalimka ah markuu dhinto yastariixu minhu alcibaadu walbilaad dhulkuna uu ka nastaa addoommaha ilaahay way ka nastaan
وضمنا دبك يكلم السماء دولكم وكلام سبوك الله هو أبوري وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق دولكم حق اللي هو يا الله تعالى إن الله اللي عابده شرعي يسلقوه خير كالله الشقاية وعاص وحكد وقفك كوايا دولك عليس يوكيا مركي لقى قاضي دولك واكس لكن قفك مؤمن كخير كشقاينا مكو بنتو عرك يبوك وإلهيان ساسا فرعون وحاليه مركي بياه لقو قرقيه فما بكت عليه السماء والأرض عرق بالوحوه فرعون مجلته وعلى غنى العباد والبلاد وكان